dugsiga shaqo qaran. raja beerka dhalinyarada Somaliland waa barnaamijka shaqo qaran ee uu curiyay madaxweynaha qaranka Somaliland Muuse Biixi Cabdi kaasi oo ku xardhay buugga ballanqaadka waxqabadkiisa waqtigii oo la doorashooyinka waa barnaamij hirgalay kana dhabeeyay dhisidda kalsoonida dhalinyarada daawade warbixintan ayaynu ku eegi doonaa waxyaalaha laga faa'iiday barnaamijka shaqo qaran. shaqo qaran waa barnaamij meesha ka saaray qabiil iyo qabyaalad waxaana uu soo kordhiyay shaqo abuur tartan xor ah iyo in ardaygu aamino qalinkiisa. barnaamijka shaqo qaranna waxa uu ka shaqaysiiyey qalinka ardayga iyo shahaadooyinka dhalinyaradu ay wax ku barteen waana barnaamij dhiirigeliyay arday kasta oo wax bartay. hadda barnaamijka shaqo qaran waxa uu galay wejiga saddexaad ee qaadashada ardayda aqoon-yahanada ay kasoo qalinjabiya jaamacadaha. arday kasta oo soo qalinjabiya maanta waxa uu aaminsan yahay inuu u diyaarsan yahay barnaamijka shaqo qaran iyo ku shaqagalkiisuba ee maareynta mustaqbalka noloshiisa. shaandhaysa muwaadinkeeda shaqaysta oo shaqo qaran. hirgalka tallaabooyinkani barnaamijka shaqo qaran waa mid xukuumadda Somaliland ku tiigsanayso in dhalinyarada Somaliland ay noqdaan kuwa qarankooda ku difaaca qalinkooda qorigooda iyo qarannimadooda. ardaydani waa ardayda dhamaysatay barnaamijka shaqo qaran ee difcadii koowaad iyo tii labaad waa arday shaqaysa oo uu noloshooda maareeyay barnaamijka shaqo qaran. shaqada ay hayaana kuma helin qabiil balse waxay ku heleen qalinkooga. waxay ka warbixinayaan barnaamijkan iyo waxyaalaha ay ka faa'iideen. magacaygu waa Yaan Cabdilaahi Maxamed ka tirsan kaabayaasha ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland shaqo qaran kana mid ah difcadii koowaad ee ku bilaabatay aasaasidda ama bilaabidda inay ka mid noqon doonaan shaqo qaran. waxaan oran karaa waa markii ugu horeysay marka shaqo ahaan la eegay si feera ay u dhacayso waayo waxa inta badan la oran jiray qof walba cid baa wada laakiin madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan uga mahad celinaa barnaamijka uu la aasaasay intii uu xilka qabtay kuna ololeeyay oo uu ka dhab yeelay. waxaan laabta ku garaacanayaa oo halkan ku joogo amba aan ku shaqeeyan ku hawl galaa inay tahay qalinkayga iyo aqoontaydu heer ay gaarsiisay ayna ahayn meel ay cidi amba yani cid aan doo fadhiistay amba aan oran karo cid heblaay ay geysay amba nin qayrkaygu igu oran karin yani meesha waa lagu gacan qabtay. waxaan maanta ku faanayaa kaliya inaan ahay shakhsi ku soo baxay aniga iyo dhalinyartii kale 1500 ee qof ee kale aan kamid ahaa inay ku soo baxeen qalinkooga iyo aqoontooda ay ku soo barteen dugsiyadoodii ilaa heer jaamacad ay ka soo baxeen. barnaamijka shaqo qaran waxa oran karaa waxyaalaha laga faa'iiday laba qodob baa ugu waaweyn waa dalbarasho iyo dadbarasho. waxyaalaha kale oran kara waa laga faa'iiday barnaamijka shaqo qaran waxa kamid ah in yani qalinkayga aan ku meel maray oo qof waliba aqoontii loo eegayo waa talabaad iyo tirtirka qabyaaladda oo ayna cidna cid jeclaysi ayna ku geyneen meesha amba aqaluna ka xaynin amba salaadiina ka xaynin amba siyaasi una ka xaynin xilku doonaha haya. iyo talabaad inaan ku faanay maanta inaan kamid ahay kaydka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland amba reserve ciidan aan ahay. waa Cabdiraxmaan Miir anigoo ku hadlaya difcadii koowaad ee shaqo qaran waxaan ka mid ahay guuleystayaashii shaqo qaran ee difcadda koowaad. barnaamijka shaqo qaran waxaan ka faa'iiday isdhexgalka wadaniyada iyo sidii cadaalad lagu shaqeyn lahaa. hore waxaan ahaa ardayda internshipka ee iskuulada ku soo bixin jiray soo dhigi jiray maantana waxaan ka oo macalinimo ahayd maantana waxaan ka mid ahay dhalinyarta ka shaqeeya wasaaradaha cadaaladna lagu kala geeyay sanaana lagu kala qaybsay nin kastaba fakalkiisa lagu shaqaaleysiiyay. waxaan ku shaqeeyaa kalsooni aan ku helay qalinkayga iyo tacliintii aan soo bartay. madaxweynaha qaranka waan uga mahadnaqanaa hindisaha barnaamijka shaqo qaran waxa uu kor u qaaday hankii dhalinyarnimo waxa uu meesha ka saaray shaqaalaantii baahsaneed ee ka jirtay magaalooyinka hirgeliyay barnaamij maanta lagu soo hirinayo laguna tartami karayo qofkii aqoontiisii 16 sano uu soo baranayay uu qalinkiisana ku meel marayo una qofna u daba fadhiisanay in xafiisi geeyra in qabiil lagu geeyo in cid uu raadsado in uu oday raadsado uu maanta kaga maarmayo. qof kastana wuxuu oranayaa goorma la bilaabaya barnaamijka shaqo qaran goorma imtixaan loo gali karaya goorma shaqaalihii la qaadanaya ayay markastana dhalinyartu ku hiranaysaa. qaran barnaamijka shaqo qaran waxa si gaar ah ugu mahadnaqanaa madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo lahaa waxa sababtiisa lahaa. barnaamijka shaqo qaran waxa laga faa'iiday waxyaabo badan wixii la oran jiray qabyaaladda uu ka saaray waa qodobka labaad wuxuu nooleeyay hankii dhalinyarta ayuu nooleeyay oo waxaan la ogaaday qof kasta inuu ku tartami karo qalinkiisa uu ku tartami karo oo uu ku kalsoonaan karo. nafsi ahaan waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan waxaana kamid ah aniga oo shaqada waxa weeyaan ku helay qalinkayga. nawaana dafcadii ugu horeysay shaqo qaran taasi oo maanta aan uga mahad celinayno madaxweynaha qaranka
oo suurtogeliyey rajo ka maqnayd somalilan oo dhan oo ahayd qofku inuu qalinkiisa wax ku goosan karo qofkuna markaa wuxuu xorriyad helaa markuu qalinkiisa wax ku goosan karo maadaama ay ahayd markii hore oday uun waxa weeyaan uu shaqaynayey ananu kaga baxnay qalinkayaga annaga taa khaasatan waxaa noo dheerayd dhallinyartan dambe imiga dafcaddii labaad iyo dafcaddii saddexaadba waxay ku soo hirtaan waa annaga oo dafcaddii koowaada markay arkeen hannaan kale noo shaqaalaysiiyey sida wanaagsanee tixgelinta le ee noogu tixgeliyey kaadhka shaqo qaran meel kastoo aannu joogno iyagu waxay heleen mabda ah inay qofkii ka horreeyey arkaan ciidan baa laynaga dhigayaa maxay baa laynaga dhigay kutirikuteennada dadkuna way badnayd laakiinse markii aannu meeshii tagnay waxaannu aragnay waxyaabo fara badan oon khasaaraba sideedaba aanu marnaba ku jirin waayo aragnimaannu dadka dheernahay ciidannimaannu dadka dheernahay barnaamijka ayaanlo faa'iidadiisa koowaad waxaa weeyaan isdhexgalka bulshada oo gobolladii in aanad ka aqoon baad ka baranaysaa waxa kaloo aad had iyo jeer ku mahadinaysaa shaqo aan oday ku geyn oo ta u sarraysa qaranka ah ilaa ta hoosaysana waynu joognaa oo madaxtooyada qaranka oo maanta halka ugu qaalisana bay dhallinyar naga midii ka shaqeeyaan magacaygu waa xamse maxamuud kulmiye kana mid ahaa dufcaddii labaad ee shaqo qaran ee gobolka Gabiley barnaamijkan shaqo qaran waxa uu horseed u noqday in ay shaqeyso qalinkayga uu shaqeeyo in ay shaqeyso shahaadadeedii inaan ka midho dhaliyo dadaalkii 16 sano ahaa ee ku soo guda jiray muddadaas aan waxbarashada soo waday waxaan kalsooni buuxda ku helay inaan wadankayga u shaqeeyo maanta waxaan ahay kayd qaran oo asad u yaala wadanka Somaliland isla markaana markii loo baahdo iyo xilli kasta loo baahdana diyaar u ah barnaamijkan shaqo qaran waxa laga faa'iidooyin aad u fara badan waxa kamid ah shaqo abuur oo kumanaan shaqaale ah ay maanta shaqeynayaan oo aynu ku tiirsanin dawladooda mooyaane cid kale ay ku tiirsantahay ayna jirin waxa laga faa'iiday isdhexgalka bulshada maanta inanka dhalinyarta ah ee galbeed jooga boorama jooga saylac jooga iyo inanka sool jooga iyo maxaan ku raadayay halkee u shaysa bari waa la iswada yaqaanaa kuna qaana maanta meel kasto tago marti kuma ahaanayo wiilka kale oo gobolka la yimidna marti kuma ahaanayo meel kasta waxa ku leeyahay hooyo aabo iyo walaal maxaan ku raadayay ula dhigmo kuwa ula dhashay si kastaba ha ahaatee barnaamijka shaqo qaran ayaa kor u qaaday rajada dhalinyarada ee Somaliland wayna xajiye telefishinka qaranka Gabiley